ورموسى وموسى وملكدادون ورموسى وموسى ورقان لمارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بلال مصطفى طاهر أنا عفيانك عددك الصومالية مركز تجربة ما توحن هلا يا إن أرتمت الصومالية أدبان سلامية مركز تجربتان ما توحن هلا يا dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala geliyay reer Sheekh Muuse Dariyo amba reer Sheekh Muuse Direed soo taqaanaan oo waxa weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala geliyay wasalaam ya meel kasta ku joogtaan dibadda daafeega reer Sheekh Muuse meel kasta degantii wada u salaamaya Soomaali meel walba ka degantii ma sha Allah maanta aan maalintii aan isla qaamay in hawshan bilaabay in dabdarinta magaceena kor isiri u qaad haday noqoto social media ilaahay way u guuleeyay iyadoo taas markaa waxa weeyaan aan hawsheedii iyo qalabaynteedii iyo hawsheedii aan u qaatay maanta aan arkayo ma sha Allah suldaankii guud iyo odayaashii reer Sheekh Muuse dhalinyarada reer Sheekh Muuse meel kasta ay degeen iyagoo la soo xiriiraya oo maanta ku faraxsan sharafta magacooga ilaahay siiyay ee quruxda badan ee reer Sheekh Muuse Dariyo amba reer Sheekh Muuse Direed taasoo ay tahay inagoo odayaashii hore ee reer Sheekh Muuse ay wax badan xeerinayeen oo ayna daba wadeen waxa weeye magacyo hanti wadaag tii oo aynu ka leexanay inteena ugu badan 2020 markuu bilaabmay coronavirus-ka adduunka ka yaabiyay inagana markaa waxaynu la yaabnay magaceena aynu ku tumanayno sumcadda Ilaahayna siiyay sharafta Ilaahayna siiyay oo aynu ku ciyaarno oo waxa weeyaan qofaad dalada waxa weeyaan Xuseen wad Cabdallah ugu yeedho walaaliga Xuseen baan ilaahay marka magaceena iyo sumcaddeena iyo sharafteena inaynu waxa weeyaan Ilaahayna siiyay inaynu kor u qaadno waa mid maanta aynu u wada taaganahay rag iyo dumar reer Sheekh Muuse meel kasta Soomaaliya oo ka digantii ilaahay baana ina waxa weeyaan deji meel walba waynu u badannahay haynu u badanno gobolada waqooyi amba Somaliland ilaahay subhanahu wa ta'ala inta gobolada Somaliland ee wax weyn ay ka tirsan tahay ilaahay waa inagu beer sharafteeda iyo sumcaddeeda leenahay meel kasta ilaahay waa inagu beer Muqdisho waa inagu beer Baydhabo waa inagu beer gobolada dhexe kuwa Puntland meel kasta ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inagu beer qof reer Sheekh Muuse Djibouti Ciise waa la deganay Ethiopia arkaysa ma sha Allah xaafado badan baan ku leenahay xataa waxaanu leenahay gobol dhamaanka Ethiopia xitaa la inoo bixiyo ay talaabo cadu badan yihiin oo reer Sheekh Muuse iska leeyihiin oo imika masaajid xataa laga dhisay Brisi ma sha Allah reer Muuse meelo badan bay aynu iska lahayn marka waynu ka seexanay maanta marka waxaan la hadlayaa marka qof kasto reer Muuse meeshan aad aragtaan ka dhaxalayno aan ka wadno waxa weeyaan dardargelinta magaceena sumcaddeena sharafteena Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay qof kasto reer Muuse waxa lagu baaqayaa page-ka haday noqoto YouTube-ka haday noqoto ana gacanta ku haya qof kasto raba inuu dadkiisa wax u sheego qof kasto raba inuu qof dadkiisa wax la hadlo sida ugu dhaqsiyaa badan way la soo xiriirayaan meel uu igu soo diray Facebook meel uu igu soo diray videogiisa ayaan siinayaa kadibna waxa weeyaan waxaan sameeyaa video aad u qiimo badan waana soo gelinayaa rag iyo dumar dadka siyaasadda ku jira dadka culimada dadka waxa weeyaan danyarta wax u qabanaya dadka wax kasta maanta inaga farxad bay noo tahay haddana reer Sheekh Muuse dadka kaliya maanta la dhigi karo haday taariikh noqoto xageed gashaan iyo xageed gashaan xagga Soomaalida kala galaan ma galna xagga Isaaq galeen galna xagga Ciise galeen galna xagga Samaroon odaygii Samaroon galeen galna xagga waxa weeyaan Allahumma salli ala hawiya galeen galna dadka noocaas oo waxa weeyaan dad waxa weeyaan hay'adooda iyo waxa weeyaan isirkooda iyo taariikhdooda ay qoran tahay oo haysto ilmo kasto reer Sheekh Muuse uu garanayo ayayna taa maxaynu markaa ku gaarnay waxa weeyaan waa isfahanka is-ixtiraamka xishmaynta kala dambeynta qiimaynta waxyaalahaas oo dhan baynu ku gaarnay inaynu horumar gaarno marka waxaynu u baahannahay haddaynu reer Sheekh Muuse
ilaahay baa subxaanahu watacaala ninkuu reer sheekh muuse ayna kala daadiyey dad waad arkaysa afmeemay ku hadlaya dad yaakhiida haya dad abowada haya dad booga haya dad ilaahay baynu meel kastiinu deganay marka waxaan rabaa qof kastoo reer sheekh muuse anigu bartan u fadhiyaa qof kastoo reer sheekh muuse anigu bartan u ahay madaxa wacdigelinta qof kastoo reer sheekh muuse anigu gariyo garadaro garab taaganahay meel kastoo adduunyada ka taagay waayo xiniyaa kugu jiraa waxa weeyaan waa kuwa lagula garab taagay ma garata xiniyu waa kuwa ku jira maa kuwa lagula garab taagay marka gariyo gardaraba waa ila garab taaganahay waxaan baaq u diraya marka dhalinyarada maanta qurbaha reer sheekh muuse inay baraarugaan arrimo badan baa jira intii awoodi doonta intii iman doonta maalin baa dhici doonta anigu ku hor dhacay ugaaska guud boqorka waxa weeyaan reer sheekh muuse waxa weeye suldaanka guud waxa weye ugaaska bashiir waxa weeye suldaan maxamed cabdi ismaaciil allahuma salli calaa maxamed boqorka waxa weeyaan boqor axmed anuu ka hor dhacayn iyo inta waxa weye gudoomiyaha guud waxa weye rashiid cabdillaahi gaas rag waa badan yahay anuu markaa ka hor dhacay oo aan ka dheereynin waxa weeyaan nidaamka iyo dee howlaha socda iyo maasha allah isaguna oday iyo adeero isaguna hawsha wada oo waxa weeyaan nuur dhimbiil oo isaguna maasha allah ka qayb qaatay dardargelinta wacdigelinta dib baraarujinta waxa weeye bulshada reer sheekh muuse cumuuman hadalkaygu wuxuu isku koobsamayaa dhalinyaroy meeshan aan ka hadlaa 24 sano waa meesheeni maanta waxaan nahay dadka keliyaata ee waxa weeyaan hawshoodu ay dhow yahay oo waxa weeyaan meelqaan iyo magac iyo sumcadba leh adduunyadana kule aakhirana kule aakhira maxaynu ku leenahay dad maasha allah wada cibaadaysto ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye safka hore galaynu nahay haddaynu reer sheekh muuse nahay taasina ceeb maaha maanta waad arkaysaan ummadda soomaaliyeed nin walba waxa weye reerkiisu kala laadaan bilihii hore waxaa la dhihi jiray dad baa laga tira badanyahay dad baa la haystaa dad baa caynkana ma jiro soomaali o dhan baa waxbaa laga tira badanyay soomaali o dhan baa dhibaataysan soomaali o dhan baa dhiban oo waxa weeyaan cidda maanta aan u arki karo bilaal ahaan inay caadi tahay uga garanay qof walba u cabanaya markaa reer sheekh muusow meel fiican bay wax noo marayaan magaceenu kor sumcaddeenu kor gobonimadeenu kor sharafteenu kor baa leeyahay ma garata ilaahay subxaanahu watacaala odaygeeni aynu ka tafiirmanay ee waxa weeya reer sheekh muuse sheekh muuse allah ha u naxariisto ma garata ilaahay subxaanahu watacaala qabriga ha u nuuriyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa in waxa weeyaan maanta in yar baa inoo hadho waxaynu ku soconaa hinjiyaay war hinjiyaay bay noo maraysa ma garata meel fiican baa inoo maraya hinjiyaay war hinjiyaay dhac markaa waxyaalo badan baa soo socda ka hor dhici maayi oo waxa weeye dad waxay nahay nidaam leh oo odayaasha ka hor dheerayn maayo oo maamulka jira ka hor dheerayn maayo oo systemka jiray ka hor dheerayn maayo oo waxyaalaha jira idii horboodi maayo hawluhu meel fiican bay wadaan waxaan wala socdaa meel kastuu muuse degaya mid baan nahay inagu waxaan haddaan reer sheekh muuse nahay abubakar iyo haaro ilaahay subxaanahu watacaala badiyey maasha allah ilaahay baa ina badiyey ilaahay baa ina tarmiyey maasha allah meeshaad tagtaba meeshaad istaagtaba waxaad ku arkaysaa qof muusa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahaddaale taasina macaan dee inaynu si xun u isticmaalo oo dadada qabyaaladu ku dheer tahay oo qabyaalada yaqaani ma nihin qof kastoo reer sheekh muuse waa qof iska hadaariya rag iyo dumarba dad waxaan nahay xariira dad ilaahay subxaanahu watacaala dhaqan iyo akhlaaq siiyey dad aamusan dad waxooga iska wata dad qiimiyo qaayale dad waxa weeyaan ciday la dhaqmeen xitaa ay garanayaan baynu nahay dad waxa weeyaan inaba caadi ma nihin ma garata marka haddaad adigu waxa weeyaan waxa tahay aad sheegi weydo ood adigu is ammaani weyda cid kuma ammaanaysa qof wal dad walba isagu is ammaanaya taariikhna cid inagu gaaraysa soomaali iska daa cid kaloo soomaali oo dhan reer sheekh muuse dhaliyo cid ku gaaraysaa ma jirto haddayna socona taariikh waayo inagu waxaynu haysanaa wax sugan baynu haysanaa dunida soomaalida ninka dhahay dad baa mujaahidiin dad baa baaba'ay dadka ugu badan ee baaba'ay waa reer sheekh muuse geesiyiinta ugu badan ee soomaaliya xitaa markay mid ahayd ka baaba'ay waxa weeyaan labada dhinacba ku dhintay reer sheekh muuse
dadka aan waxa weeyaan miliqsan aan waxa weeyaan laftii hilibka kala saara waxa weeyaan libaaxayda soo qabtaan horta soo kala jooga reer Sheekh Muuse taariikhda ma kala raac waa inaga aan faanin faanku waa nin isfaanshi waa riis murtay dhaan Soomaalidu inaga aan faanin ilaahay qiimahaas uu siiyay qadarintaas uu siiyay hadduu imika isla oo reer Sheekh Muuse ka sheekay taariikhda reer Sheekh Muuse waxaan ka sheekaynaa wax riirtiya wax qurmiyeen ka sheekaynaa wax soconayeen ka sheekaynaa wax aqliga bid'aadka galiyeen ka sheekaynaa because waxaan nahay dadka waxa weeyaan dunida ugu waxa weeyaan waxa daarisan baan reer Sheekh Muuse Soomaalina dad inaga jecel ma jirto meel kasta uu deganahay waxaan aaminsanahay ninka reer Sheekh Muuse qolo kasta la degay aad u jecel balka Somaliland Muuse degan way ka jeceliin dadka Somaliland waxa weeyaan u sinibso u sheegta bal Muuse aad u jeceliin dadka reer Muuse Puntland bal waxa weeyaan maamul goboleedka Itoobiya bal Djibouti dadka reer Sheekh Muuse mar kasta meel kasta joogo muwaadiniin weyn waa dad u nugul waxa weeyaan dadka la nool yihiin waa dad aan believe gareyn waxa weeyaan minority iyo major waxaan believe gareyn weyn waa dad hankoodu kor u taagay weeyaan ninka reer Sheekh Muuse ama gabadha reer Sheekh Muuse waa qiimo iyo qadarin bay leedahay ma sha Allah ilaahay baa markaa gisi bulshada markii ku dhex jirno dadka la tilmaamay ee wada wacyi reer Sheekh Muuse weeyaan ma sha Allah markaa inay magaceena meel ku marno ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo magacaayo maamuuska ay siiyay qiimeyn iyo qadarin ilaahay subxaanahu wa ta'ala intaba inuu galadaystay dadkeenu cid kastaba ay ka marxaati kacayso oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo yahay qiimaha in la naadin reer Sheekh Muuse leeyanahay waxa weeyaan teena meel ku marno in yar baa hadhay taayarna waynu dhameynayna waxaan maanta wax ku haysanaa meel kasta inuu jiganahay day muqdisho noqoto dawladda imika waxa weeye Soomaaliya wax bay ku haysanaa reer Sheekh Muuse bay ku haysanaa Puntland hadday noqoto reer Sheekh Muuse bay ku haysanaa Itoobiya hadday noqoto reer Sheekh Muuse bay ku haysanaa dawladda Djibouti dad bay noqotay reer Sheekh Muuse dad inagu qayqayliye maliye dad waxa weeyaan fadhaati iska kaliye dad waxa weeyaan isku kalsoon bay ummadda inaga reebtay waxa weeyaan wax kala maaha waxa weeyaan wax kor soo qaado oo waxa weeyaan bal wax raadiya tiina maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala de wadayna u faraj qeyb ilaahay u وما يتوكل على الله فهو حسبه إلهي بان تلصى إلهي بان يوفي النار ويرسله من حيث لا يحتسب إلهي ما ينكب لما تنقارسا مجد عيني با إلهي نبوها ساقية مع مستين إلهي ما تبوحين الفهانسية دنتين شرفتين هؤلاء بضبا مركز وصلا مركز وين كتر بيدينا وبدكينا أي مبرلي يكوى دل دونان سي مركز تأي وحا وين مبعوغي مع موسو وحبورها سبحانه نمو البصة قالك كل شيء نمو البوحي يهي قفل بوحية الدنيا لا كسو قفل بوحية قبيل والبن قفل بيلي قبيل والبا إن في عن اسم بيلي فقاينا كلفت جينو إن في عن اسم ويلي لكن وحنا أنا وقفي عنها هاي تتكلياتي وحوية كم ريسن مع موسك المبوع وشرفت لنا تتكلياتي أنا اسكت بعض اليوم تتكلياتي وحوية سيستم باين غير خلدنا سيستم كاس سياسي بتينا ونصحنا معه سياسيين waxay u diini maanta qof kasto aqoonteeda u leh ay u diini oo nin siyaasi oo loo diray maanta in umaamad wata loo diray nin shicib loo diray waa nidaamka iyo dastuurka iyo waxa weeyaan hawlaha maanta bartii ku soo gaadhay hadii reesha muusana marka hadii reesha muusanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala qiimaha in siiyay iyo nimcanka ilaahay siiyay iyo maamuuska ilaahay siiyay wala nugu xamdinaa waxaan habsaamiyay waxa weeyaan waxba ay qacanta inoo galiyay waxaas waqtigii laga riday laakiin maanta ilma kastoo reesha muusuu garanay ilma kastoo reesha muusuu ka dhalanayna waa u sheegaynaa ka joogana maanta uu garanay in waxa weeyaan waxaan ummadda inaga reeb muddo 40 sano istabajiid iyo balaayo iyo waxa weeyaan dad aan waxa weeyaan izin iyo meel aan isku soo galin inaynu dhahno kaale waxa weeyaan halkan إن وحنا الصين أيضا كان يقرأ كمان أنت وين دنتين مرك ورايقنا وايو سمعوا واحد على حاجة لبيه تمن من الكوب بابا يعني هذا اللي في شيء ويحب بابا يا بابا محبين اللي بقري لكن إنك وين ما تجرنا سمي غير السمعة جرى الكروب هذا تحصل ومن سيريس ومن نات موسى كم يديسي مركز كتشو ويحب قدرنا يوحي حجال يوحي سمعوا بده حجال يقدرين بيسوا ولا قطع
iyagoo wax kala qabo ay haddana dantooda kala wataan inaguna tahay Soomaalidu qaadeen waynu qaadnay inagu ka soo gaabinay oo aynu ka gaabsanay tiibanu maanta inaguna waxa weeyaan meesha marinayna oo aynu meel marinayna marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka rabaa magaca Muuse waxa weeyaan korahaado in kor inoogu socdo in gobonimadeena iyo sharafteena waxa weeyaan isii ku weysato in maanta waxa weeyaan qof kastoo reer Sheekh Muuse aan leeyahay waa mahadsantihiin sida qiimaha badan ee waxay noogu socdaan anigu maanta markaan hawlahan bilaabay waxaan dareemayaa farxad baan dareemayaa waxaan dareemayaa maskax baan dareemayaa niyad ahaan waan dhisanahay waayo waxaan u dagaalamayaa inuu hadlay waa ehelkii waxaan la dagaalamayaa waxa weeyaan maanta u dagaalamaya waa dhiigii iyo dheecaankii hadday xataa caayaan waxba uma arko hadday amaanaan waxba uma arko because maanta waxaan ogahay waxay dan igu jirtayna wato maanta inay iga badan tahay waxa weeyaan maanta muslimnimadaydu inay qancisay inay maasha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu ilhaamiyey ii soo hadeeyey ii soo hanuuniyey waxa weeyaan bulshada reer Sheekh Muuse iyadoo maanta aan cid kale aan necbayn cid kale aan waxa weeyaan naxal iyo dad u qabin laakiin maanta waxaan xasuustaa 2015 markaan hawlaha bilaabay haddaan maanta danta reer Sheekh Muuse bilaabi lahaa wax badan baa hirgeli lahaa laakiin kamaan qoomayno waayo aragnimo noqday oo waxaan ku foognaa waxa weeyaan cid aan ii diirnaxayn amba cid aan ii ogeyn sharafta iyo karaamada iyo qadarinta aan u hayo laakiin maanta waxaan ku dhex jiraa dad i jecel dad waxa weeyaan ka dhashay dad i dhalay dad waxa weeyaan maanta wax walba ila garab taagan dad maanta waxa weeyaan hiil iyo hooba dad maanta waxa weeyaan feerka laygu soo wada iskaga kay dhigaya waranka laygu wada iskaga kay dhigaya dadkaasaan maanta ku dhex jiraa oo waxa weeye dadkayga reer Sheekh Muuse Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meesha joogaan Allah ku asturee inta dhimatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariistee maanta waxaan leeyahay aad baa idin jecelahay meel kastoo joogtaan reer Sheekh Muuse maanta in badan baynu waxa weeyaan dhulka yaalnay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay qiimeynta dhalinyarada maasha Allah maanta jaamacadaha ka baxaya kuwa kale ka sii baxaya kuwa siyaasadda gelaya kuwa waxa weeyaan qurbaha jooga kuwa hanka dhaqaalaha leh kuwa maanta doonaya inay dalka madaxweyne ka noqdaan maanta diyaarinaya inay waxa weeyaan waxyaalo badan noqdaan ani moraalkeedu waa dhisan yahay maanta waxaan ku rajo qabaa maanta 10 sano soo dambe socda inaan arki doono dad aniga maanta ila dhashay amba waxa weeyaan dhiigayga oo waxa weeyaan Soomaaliya amba waxa weeyaan Somaliland hogaamin doona amba Puntland amba Djibouti meel kasta way aqoontooda ku hogaamin doonaan maanta taasina farxad bay tahay guulna way tahay gobonimona way tahay waana sugayay Ilaahayna wuxuu leeyahay tilka ayaam ladaawlaha binanas ayaamaha wareegan maanta taasoo sugayay dawladii gobonimadii iyo sharaftiina way soconaysaa moraalkeygana waan leenahay adduunka waxa horumar lagu gaaro moraal teedina waan leenahay wax naga dhiman ma jiro waxaan leenahay FIFA Muuse dhariyo meel kastoo joogtaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad baa idin salaamaya aad baa idin jecelahay maanta waxaan mawduucay ku jiray inaan cajilada geliyo ehelkeyga insha Allah oo maanta waxa weeyaan aan ka hadlo inaan dadkayga baraarujiyo waxa weeyaan waa muhiim dadkayga runtii waxyaalo badan baan waxyaalo aan anagu lahayn baan soo qaadanay magacyo xun balaayo waxaaba waan soo jiidino laakiin maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddaan naga reebay oo Ilaahay waxa weeyaan na tusiyey magacayo iyo quwadda aan leenahay Ilaahay baa mahadnaqaynaa Ilaahay baan sharaf ka sugaynaa waxaan leeyahay walaalahayga qiimaha badan ku soo dhawaada waxa weeyaan janankayga ama page-kayga meel kastoo joogtaan waxaan leenahay anagoo waxa weeye reer Sheekh Muuse dareera si qiimo badan baa idin salaamina si gobonimada idin samaynayna dhalinyarada reer Sheekh Muuse waxaan leeyahay hore loo soconaya maanta hankeenu waa soconaya in dhaqaaqina guusheena iyo gobonimadeena iyo guusheena waxa weeyaan inakay ku jirta haddaynu marno oo aynu u marno waxa weeyaan systemkeena iyo nidaamka ugu dhow ee magaceena wax ku raasano xataa ayaan ku weyneeyay sharafteena ku jirta qiimaheena ku jirta ma garatay markaa maanta waa la kala leexday waxa weeyaan Soomaaliya waayna kala baratay qiimihiisa iyo sharafta wax walba waa la kala ogaaday gobonimadu meel fiican bay maanta maraysaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay
annaga ay jecladaan reesha xusanahay meel kasta joogto way la degan dad reesha xusanahay imkana baramaysan laakiin anu way naqaan anagu hadaan reesha xusanahay waddo Soomaaliya loo kala naqaan laflaf baan kala garanay kaas waxaan nahay aan wax loo sheegi karin kaas waxaan nahay waxa weeyaan jecel waxa weeyaan meel kasta dadkii la degan jecel qiimaynta jaarka qadarinta gobonimada sharafta garanayna dad aan ku habsan waxyaalaha qaar baan dad aan waxa weeyaan ku meel aan waxa weeyaan aan ka hadal baan dad waxa weeyaan aan kalsoonidoodu ma kastay waayo laabta ku haystaan marka Soomaaliya anaka ay jecel meel kasta joogtaan kaliya laabay islaamiga maanta mawduucu ku saabsan waa Muuse meel kasta joogo marka Muuse meel kasta joogo hawshan dad Muuse oo ka dhaxeeya وأنت مالك كمان وحلقة بلا Somaliland إن شاء الله سان مقالك وهاي شركة وين وحوق بندونا وحويا Somaliland جانا مجال هرجيسة لكن حلو وياي كور بالماي إن شاء الله وأني أنا قبصني وصلنا غير شيء ومشي محانا بقبصني وحوجوجا مالكوجا نفتوجا لعجتوجا جوجنيموجا شرفتوجا وأنا إيمان إسحاق إن شاء الله بيان تجارب رامكرت ودول بيمان إسحاق أربعين سلام يا دليل مرادك ومرادك ما جدين ومقعيك شرفتي ما شرفتي قول بقى غير شيء مسلم مركز تجوله ورموسى وموسى وملكدادون ورموسى وموسى ورقان لمارين ورموسى وموسى ورقلق هرتام ورموسى وموسى واللي بحيادك اللهم قاعين ندير هذا يديد بكيل دعان بالبلاري